ugu yaraan haddaan keligan dagaalka galno kursi kastoo mareexaan waa inaan xoog ku qaadanaa wallaahi billaahi tolla inaysan aqli kale inaan jirina ku dhahay waa inaan ku qaadanaa xoog kursiga mareexaan oona haysanaa anaku ilaa dawlad kale haddana la isku bedelo hadday labada saddex waalayn tol iyo dad ay leeyihiin marka waxa geemka loo dheelaa waa reer muqdisho geemkiina haddaan ku jirnaa annakuna horaan dad u dirnay maraykanaan dirnay etoobiyaan dirnay al-shabaab aan dirnay waa faanta malena wallaahi billaahi tolla farmaajo inuusan wii qaadanin waxaa sharad iga ah intii la doono lacag dhigi karaa farmaajo inuusan ciidda madaxtooye ku gaarin bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalaha maanta ka dhacaya Soomaaliya oo diktaatoornimada ah iyo waxa maanta dadkayga isku laynaya iyo waxa hooyooyinkeennii iyo carruurteennii iyo dumarkayga ugu qaxayaan rabaa maanta ka hadlo bishii ugu qayrka badneedan ku jirna bishii Soonqaad oo bilaha Ilaahay sameeyay ugu karaamada badnaa 15 milyan oo dada wax ka dhaxeeya shakhsiyaad kooban oo rabaan inay xadaan aan rabaa maanta inaan xiraado taas oo leeyahay wadankan Finland oo matalan 32 sano degannahay afar sano kasta doorasho la galaa ayagoon muslim ahayn ismana qayaanan ismana dhacaan dadkoodana ma dilaan muxaafad iyo munaafiq way leeyihiin dawladdu way kala duwan tahay laakiin kulligood waxay ka shaqeeyaan waxa horumarka iyo waxa runta wadankayga maanta dhibaatada ka taagan aan rabaa inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan ka hadlo oon mid iraahdo dadka reer Muqdisho odayaasha aan ka dhalanay oo hawiye way shireen dalka dibadda laakiin ma shirin maadaama aan ahay nin caan oo ganacsada oo wadankan deganaa wax badan oo dib u dhiska dalkiisa rabay inuu ka shaqeeyo aan rabo maanta inaan mid iraahdo waxaan rabaa su'aashan inaan weydiiyo dadka hawiye wareedhaha ninkii wuxuu yidhi maanaa waalan mise meel hebla laga heesaya waxaan isweydiiyaa habeen iyo maalin haddaan taariikhda ka soo bilaabo waqtigii maxamed siyaad barre la saaray ilaa waqtigan maanta oo farmaajo nagu dhegan yahay waxaa dhacay muqdisho dhiig badana ku daatay aan ku daadan gobollada kale aan ku daadan Jubbaland aan ku daadan Puntland aan ku daadan Somaliland siyaad barre kadib maalinkii maxamed siyaad barre oo dictator la yiraahdo la saaro waa wada xusuusanaa waxa ka qayb galay jamadii Somaliland waxa ka qayb galay kuwii hadii alla ku roon yahay Puntland SSDF waxa ka qayb galay USC maalinkii maxamed siyaad barre laga saaray hadii alla ku roon yahay meeshii la yiraahdo Muqdisho uu afgooyo marayo wuxuu yiri wariya daarodahay waxa la wixii la socday oo awal la dagaalamay asagay la jirsadeen waxa Ilaahay uu sameeyay inay dadkii markii Kismaayo laga bixiyay ay yiraahdeen maxamed siyaad barre dadkii waagi la saaray USC xasuuqay geysatay xaqu-beeyaankii ku xadgudbeen kuwii intaasoo sano la dagaalamayay waxay keeneen in USC ku marqaati furaan oo yiraahdeen xasuuqay geysteen 35 wadan Soomaaliya oo Muqdisho timid dagaal ka sameeyay gumaaday geerteen way baxeen annaka ku dagaalanay reer Muqdisho ku dagaalamay kumaan kun oo qof uga dhimatay kaligeena nagu ahayd waana la kaga tagay markay waxay sameey kareen sameeyna tageen waa u adkaysan oo u dhabar adeegna waxa la wixii la ka jijibiyay dib iyo rafaadan ku dhisnay jid noqotay guri noqotay iskool noqotay waa la soo hogaamiyay Cabdullaahi Yuusuf oo waxa yimid Ethiopian wata oo ciidamadu haaf yihiin Soomaali wadanka yimaadeen 75 kun oo ciidan waxay qali karaan iyo waxay dili karaan iyo waxay gubi karaan annaka ahayn dhiigayga lagu daadiyay guriyahayga lagu dumiyay carruurteena agoon ku noqotay islaamo badan asay ku qaaday
ragga kamida hala qaxiyo hala dilo oo ilaa had deertan ku jira xataa wali waqtigi way tageen waa saarnay dawladda la dhisay nimankii dilayay dadkii qaybtooda qaatay maamulkooda qaatay mashruucyadooda qaatay oo dib muqdisho ugu soo noqday ayagoo shaar kala wata maantay doorasha dhacday dumaraadii dhacay waa la heshiiyey waa la wada hadlay sheekh shariif madaxweyne noqday afartiisa sano dhamaatay caadi uga degay waa la joogay xasan sheekha noqday uu ka tegey waxaana loo keenay nin waalan sida cabdullaahi yusuf loo keenay nin waalanana loo keenay afartiisa sano markay dhamaatay 2 sano ku darsaday 2 sano waqti ku darsanayay teendada xalan rag fadhiyeen yani dadka hawiye haday sixran yihiin ana waxa u maleynaa dadka sixirka soo gaaray ma sixirka waa ka foga ciyaarta koran ka fiirsanay dari iyo axmed madoobe iyo madaxweynaashii hore waxay la fadhiisteen teendada wax kasta oo farmaajo yiraahdo waxay yiraahdeen maya maalinkii 2 bilood ku dhawaad fadhiyeen oo farmaajo 2 sano ku darsaday ee dad dabada jajabteen diyaaradda raaceen way dhaqaaqeen waxay yiraahdeen hawiyow farmaajo iska saara oo la dagaala 100 nin ay wateen oo hubaysan hal nin kama aysan tegin hal qori kama tegin waxaan garanay inaan farmaajo la dagaalno on diyaar una on saarno war mooysan dumraad dawladdu ay sayn wax sheer ah oo dadka ka dhaxeeya mooysan Jubbaland wax ka lahayn mooysan Puntland wax ka lahayn maxaa annaka on askar naga dhiga markasta jinniga saara su'aashan isweydiiya waxay tahay war haddaan saarna maanta ay dadkayga qaxaan hooyooyinkii qaxaan carruurtii qaxaan hantideena ku baaba'ano raggeena ku baaba'aan war ilaahay baan kugu dhaarshay maxaqa kursiga hadhow tadii la soo fadhiisto oo la yiraahdo noo kala qaybiya 50-50 wiilka joogarawan wiil kama dhiman muu u saqaxin wiilka kismaayo jooga ninka kama qof kama dhiman wax ka qasaar male waxaan u arkaa inay tahay wax qayaanadu marka 2 mid weey ninkii leeyahay farmaajo iyo dari iyo axmed madoobe inay sheeka buluniyo wataan ay tahay oo dadku cayaarayaan iyo ina annaku dad dhiman aan nahay oo dad aan fiyoobeen aan nahay labadaas waa mid anigu marka midaan rabaa waxay tahay biri waa sabti waa maalinkii farmaajo hortagay meesha tuuganimadu ka timid anigu hadda baarlamaanku kuma sheegi karee wax wanaag hadda maanta kuma sheegi karee meesha oo qaacinimada hore ka dhacday oo la Soomaalidu wax ku maamad hal booliya la nirig xalaal ma dhashay mogta meeshii shalay 2 sano qaacinimo lagu sameeyay maanta in wanaag ka imaan aniga ma sugayaba ninkii sugay asay u taala aniga haddaan maanta farmaajo saarno aniga waxaan taaganahay oo dhiigay ku taatay kaligen waxna lala qaybsana ma jirto waxaan noqonaynaa dad gooni u taagan waana noqonnaa markasta waana la dulma waana la qayaana waa inaan meel gooni ana ku istaagnaa waa inaan Soomaaliland ha go'do Puntland ha go'do annakuna Koonfurland aan go'no maamul gooni madaxweyne gooni aan samaysano ila qayaano joogta looma adkeysan karo hadday ahayn axmed madoobe iyo dari hadday ruu sheegayaan ay farmaastaan la dagaalsan yihiin ciidanka ha soo direen dawada ha soo direen lacagta ha soo direen cuntada ha soo direen hana wax ka dagaalan farmaajo inaan kaliya saarno oo wiilasha hawiye 90% nimanka farmaajo wata waa iyaga danab iyo duufaan iyo kulli hadaan maqashid waa ragayga raxweyn ha noqdeen habar gidir ha noqdeen abgaal ha noqdeen sheeqaal ha noqdeen waa ragayga 90% waa labada garab u kala jabay waa faanto malinaya waxa uu isku dili raba waa iyaga taasna ciidanku waa inay fahmaan annaku manihin shaqaalo u shaqeeya dari iyo axmed madoobe iyo farmaajo marka hawiye waxaan dhihi lahaa wareede waagi Etoobiyaanku yimid oo damaanta kaftan meesha ka tuur maalinka Etoobiyaanku yimid oo nin odaya oo hadla la waayay axmed diiriyaa yimid oo hadlay oo yiri hawiye quusanina
maantay waxaan rabaa inaan qaato jagada Axmed Diiriye waxaan idin leeyahay hawiyo yaan la qaldin haddaad daasheen oo qalad leedahay hayo anigu maanta waxaan inaan diyaar noqdo oo noqdo caaqil hawiye waa inaan xisaabtanaa waa inaan dari inta hadda madaxweynayaashii hore arkay siyaasiyadii arkay barnaamij ministeriga arkay wiigaan dhan 25 dagaalku markuu dhaco ilaa haddeer hal nin oo wili yiri Jubbaland iyo Puntland dagaalka ka qayb qaateen hiil iyo hooba ma arkin sababta u dhicaysa maxay tahay 4.5 nadhow waa lagu qaybsana ugu yaraan haddaan keligan dagaalka galno kursi kastoo mareexaan waa inaan xoog ku qaadanaa wallaahi billaahi tallaahi inaysan aqli kale inaan jirina ku dhahay waa inaan ku qaadanaa xoog kursiga mareexaan oona haysanaa anagu ilaa dawlad kale haddana la isku bedelo anigu shirku kaasaan u qabtay midda kale oon rabana inaan u sheego dadweynaha ay fiirsan doono cidda doontaa noqoto anigu reer qabiil ma qabiilna ma raadinayo laakiin waxaan rabaa waxa la yiraahdaa daacadnimada anigu wadankan waxyaalo badan aan ku bartay shahaadadaas aan haysto 93 aan qaatay wadankan wax yar jooga Marti Ahtisaari waa madaxweynaha hore Finland waa ninkii gaarsiiyay xornimo gaarsiintii Nabiibiya uu yaqaan farmaajo iyo cid ka soo fiirsatay dad yaqaanaanba waa 28 sano ka hor markaan shahaadada qaatay waxaan u qaabilsanaa gobolada Finland ka mid ah doorashada aanu ahaa ninka u qaabilsanaa hamaleyna magaalada Liira maalinkii uu madaxweynaha ku guuleystana shahaada sharaftaas u siiyay waxaan ahay nin aqoon u leh doorashada habka looga shaqeeyo iyo habka dimuqraadiga wuxuu yahay qofka nuuc u codeey iyo nuuc kasta nimankan markay ku jira doorashada isku dilaya madaxnimada iyo madaxweynenimada iyo wadanka waa wax naga dhaxeeya qayr iyo qasaaro wax kasta waa inaan sheer gareynaa wax kasta maanta Somaliland kuraasa la siiyay Jubbaland kuraasa la siiyay Puntland kuraasa la siiyay dictatora haday farmaajo raba inuu afduubo waa inaan ka wada qayb qaadana kulligeen hiiliyo hooba xanuun kaliya hawiyaha ma aan waxa is dhar guryaheennii iyo caruurteena oo qaxaysa marka intaas ka badan ku dheeraado ma rabo waxaan rabaa hal xisaabtamo maantana calankaas waka calankii Soomaaliya wuxuu halkan ku xirnaa 22 sano gurigeygan markasta oo tacsi dhacdo waa dejiya Allah u naxariistay waxa ugu dambeeyay lagu dejiyo injineer Yariiso markii la dilay asbuuc buu degsana 25 bishan deji markii dagaalku xamar ka dhacay ciidamadu kala jabeen oo farmaajo afduubka wadanka ku qabsaday dadka dariska oo finishka markasta oo dejiyo waxay soo dhigaan hadda guriga qaybta dabooda ubaxyadii tacsida yaala waxaan u dejiyay dadkii dhintay iyo afduubka wadanka lagu qabsaday ilaa farmaajo ka tagana mar raba inaan kor u qaado marka aniga calankaygu halkan tacsiyaas u fadhina waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo wareysigayga maantay iyo dardaarankaygan filan yar oon ka fiirsaday maadaama aan xiiseeyo siyaasadda Soomaaliya doorashadii Baydhabo oo dadka shacabka lagu xasuuqay waa la ogaa farmaajo ciidamadu u diray iyo habka u xasuuqay waxa ku xiga Dhuusamareeb sunna wal jamaaco xamar wada ciidamo ka qaado wuxuu ku weeraray sunna wal jamaaco ciidankoodii oo la ogaa intuu ninoo ka dilay waxa aniga maskaxdayda ka dhaadhici weysay oo wax suurtagal ah la noqon weysay Axmed Madoobe iyo Dari nakis maayo kala yimid 100 nin qoriyo wata ninna 100 nin kala yimid meeshii la yiraahdo Garowe labadaba aeroboortkii ka soo degeen wax yar oo qulqulata lama gelin meeshii ma dawladdu ka jirin macna waxay tahay farmaajo iyo Dari iyo Axmed Madoobe waa atoorayaal wayn is ogyihiin ilaahayna wuu ogyahay ayakuna ogsiin nin kasto maskaxlana ogaa kara teendada markuu fadhiyay markasta waxa farmaajo soo dhiga Dari ama yalaha ciyaarta footballka marka la dheelayo goolasha nimanka laga sugaa waa sayga iyo maynka iyo 11 waa nimanka saddex boono isku baas aniga mar horaan sheegay
gol dhaliyo waa farmaajo ninka baaska u dhigaana markasta waa Deri iyo Axmed Madoobe haddaan maanta la ogaan maalin la ogaa doona wax kasta ay ku tashadeen waxa inay nimankan reetolka qayaano lagu wado waana waxaan anigu aan yeelaynin oo on maanta dhaar ku mari kara nin weynanahay nin ganacsadaana nin qoran la maanta waxaan dhaar ku mari kara in isdagaalsaneen inaysan xataa hal maalin isdagaal markay nimankan ma dhalan 91 iyo 92 iyo 93 kadib waxay rag soo marina way og yihiin hadday labada saddex waalayn tol iyo dad leeyihiin marka waxa gameku loo dheelaa waa reer Muqdisho gamekiina haddan ku jirna annakuna horaan dad u dirnay Maraykan aan dirnay Ethiopia aan dirnay Al-Shabaab aan dirnay waa faanta malena wallahi billahi taala farmaajo inuu soo wiiq qaadanin waxa sharad iga ah intii la doono lacag dhigi kara farmaajo inuu soo iida madaxtooyo ku gaaray laakiin balan waxa inaan la sheer garin haddaan dhibka iyo dheefta aan isla sheer garin wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh